taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiisha AMISOM ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay isku afkarteen sidii loo soo afjari lahaa gulufka lagula jiro kooxda haraadiga ee nabadiidka ee shabaab inta aan la gaarin sanada 2016 warkaasina waxa eegaya wariyahana Maxamed Xasan Cali kulankan oo wada yeesheen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareegaas Maxamed Aadan Axmed iyo taliyaha ciidanka AMISOM ayaa waxa looga hadlayay qodobo ay kamid yihiin dardargelinta howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab xoojinta wada shaqeynta ka dhaxaysa ciidamada iyo sidii dalka oo dhan looga saari lahaa maleeshiyaadka qaswadayaasha al-shabaab si loo gaaro hiigsiga 2016 kadib markii taliyaha ciidanka xoogga dalka xafiiskiisa Muqdisho ku qaabilay saraakiil ka tirsan ciidanka AMISOM waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka AMISOM General Jonathan oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in kulankaasi sidoo kale lagu soo hadal qaaday sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ula wareegi lahaayeen guud ahaan ammaanka dalka isla markaana diyaar u yihiin AMISOM inay ka qayb qaadato fududeynta qorshahaasi. The purpose of our meeting this morning was to ujeedada kulankeena saakay wuxuu ahaa in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee shaqo wadaagta ah ay isku dhaafsan lahaayeen fikrado iyo sidii ay isugu abdeegareyn lahaayeen howlgalladii aan sameynay iyo sida ugu wanaagsan ee aan u horumarin lahayn shaqada naga dhexaysa maadaama ciidamada qalabka sida ay isku diyaarinayaan inay la wareegaan mas'uuliyadda amniga dalka mustaqbalka maadaama ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay isku diyaarinayaan inay la wareegaan mas'uuliyadda amniga dalka mustaqbalka waxaan filaynaa in kulankeena ku soo hadal qaadanay mowduucyo badan oo aan isleenahay waxay saacidi kartaa in si dhow aan u wada shaqeyno ayna u suurtageliso ciidanka xoogga in gacan ay ka geystaan sidii doorashooyin ay ugu dhici lahaayeen dalka sanadka soo socda to be able to support the next engagement particularly as we prepare to go for election in the coming new year. Thank you. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareegaas Maxamed Aadan Axmed oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in dhawaan la furi doono xafiis ay warbixinada ku kala qaataan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kan AMISOM si loo xoojiyo wada shaqeynta ka dhaxaysa ciidamada inaan wada shaqeyn dhaba ina dhexmarto oo aanu gacmaha isqabsano oo inta isaga dhoobaano ayaanu ku tashanay xafiisyo wada shaqeynay inaanu furo ayaanu ku talagalnay shirar joogto ah oo bishii mar ugu yaraana inaanu isugu nimaano ayaanu ku talagalnay mustaqbalka 2016 ee doorashooyinka dhacaya wixii saameyn ku leh xagga nabadgelyada inaanu sii wada qorsheyno ayaanu ka wada hadalnay waxaan markaa u mahadnaqayaa taliyaha iyo abaanduulihiisa iyo sarkaalkiisa ninka siyaasadda u qaabilsan iyo afayeenka iyo guddiga ay wataanba waxaan uga mahad celinayaa imaatinka ay noogu yimaadeen taliska iyaga guud oo ay sida niyad samida ah aanu uga wada hadlnay arrimaha aan sheegayo waa mahadsantihiin waxaanuna ku ballannay wada shaqeyn kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu la qaato taliyaha AMISOM tan iyo markii xilka uu la wareegay Sareegaas Maxamed Aadan Axmed. Maxamed Xasan Cali, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, wasaaradda gaashaandhigga magaalada Muqdisho.